madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socday beesha caalamka oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya James Swan. waxaa kale oo wafdigan ka mid ahaa xubno ka socday IGAD, safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya, la taliyaha guud ee ANISOM iyo xubno kale. kulankaas waxaa lagaga wada hadlay hanaanka u socoto doorashooyinka Jubbaland iyo sidii ay u noqon lahayd doorasho xor iyo xalaal ah, lagana fogaado wax kastoo keenaya fawdo iyo amni darro. ergeygan qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo madaxweynaha Axmed Madoobe hordhigay laba qodob oo beesha caalamku ay doonayso in la fuliyo, kuwaasoo kala ah: kow, in fursad iyo waqti dheeri ah la siiyo musharaxiinta iyo mucaaradka si ay isugu diiwaangeliyaan ugana qayb galaan doorashada; labo, iyo in wax ka bedel lagu sameeyo shuruudaha lagu xidhay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Jubbaland. madaxweyne Axmed Maxamed Islaan xubnaha ka socday beesha caalamka u sheegay in isagu sharciyad u leeyahay wax ka bedelka jadwalka doorashooyinka, isla markaasna ay tahay shaqada guddiga iyo xuduudaha iyo doorashooyinka. ugu dambeyntiina waxaa la isku raacay in guddiga iyo xuduudaha doorashooyinka Jubbaland laga sugayo jawaab kama dambaysa ah oo la xiriirta hanaanka doorashooyinka Jubbaland. Tarsan TV, Cabdiqani Cali Faarax, Burco.